bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal soo dhowaada kusoo dhowaada falanqayn iyo macluumaad muhiim ah oo aan doonayn inaan ka ogaano hay-adda gargaarka qaybinaysa asalkeeda hay-adaha la shaqaynayo ujeedada ka dambeysa xubnaha saaxiibada la ah netanyahu inay barnaamijkan ku lug yeeshaan maraykanka imaaraadka carabta iyo midowda yurub go-aanka ay qaateen markii ay wax badan ay ogaadeen kadib waxaan eegi doonaa sidoo kale turkiga Syria wuxuu ka doonayaa saldhig military inuu ka samaysto ra-iisul wasaaraha Pakistanna waxa uu socdaal ku yimid magaalada Istanbul ee dalkan Turkiga arrimahaas oo idil ayaan insha Allah taala kugula wadaagaya barnaamijkan ma doonayo qodobada inaan ku dheeraado soo dhawaada saaxiibayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo marcada show iyo barnaamijka falanqaynta caalamka maanta gacanta ku dhig gurigii aad haminaysay oo ku yaala guri Nairobi Kenya shirkadda Royal Modern Homes ayaa ku diyaarisay fursad aad ku heli karto guri bilow ah iyo mid la dhameystiray dhismihiisa wax walbana ay u dhameystiran yihiin adigoo lagu soo saarayo deganaanshaha dalka Kenya kala xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo mahadsanid wargelin muhiim ah ma doonaysaa in waalidka oo dhintay ama sariiryaar aan laga soo cumreeyo inta lagu gudo jiro bilaha xurmada wax ka yar $300 ayaa lagaaga cumreynayaa shirkadda Altaqwa ayaana ku samaysay qiimo dhimis aad u ballaaran kuna soo diraysa cadeymo muujinaya qaabka cumrada ee u dhacday la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo mahadsanid waa hagaag mar kale isku soo noqod wanaagsan intaanan si gaar ahaaneed u eegin xog badan oo aan doonayo inaan ka ogaano arinta koonfurta Rafax ka jirta iyo ciidanka cusub ee halkaas lagu arkay iyo hay'adda gargaarka qaybinaysa iyo macluumaad faahfaahsan insha Allah taala aan maanta kadib isleeyahay wax badan ayaad ka ogaan doontaan waxaan ku hormarayaa arrimahaas oo idil intaanan eegin ra-iisul wasaaraha dowladda Pakistan ninka lagu magacaabo Mohammad Shahbaz Sharif ayaa maanta soo gaaray magaalada Istanbul ee dalka Turkiga booqasho 2 maalin qaadanayso ayuu halkan uu ku yimid waxaana uu la kulmay madaxweynaha dowladda Turkiga iyo sidoo kale mas'uuliyiin kala duwan socdaalkiisu waxa ku heliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Pakistan waxa ka horeeyay saraakiil ciidanka ah iyo taliyayaasha ciidamada ugu sareeya dowladda Pakistan oo maanta magaalada Istanbul yimid lana kulmay taliyaha ciidanka lugta ee dowladda Turkiga arrimo badan ayay ka wada hadleen ujeedaduna waxay tahay in marka hore Turkiga ay yiraahdaan waad mahadsantihiin iyaga oo kaga mahad celinaya ka qaybgalka iyo garab istaaga dowladda Turkiga ee Erdogan uu hogaamiyo ay garab taagan tahay reer Pakistan marka waxa la yiraahdaa waad mahadsantihiin annaga waxaan nahay dad walaal ah oo aad wax u qabateen idinma iloobin waxay aad ugu mahad celinayaan marka horumarinta dhanka tiknoolajiyadda iyo taageerada dhanka hubka wada shaqaynta dhanka militariga ee labada dawladood Turkiga wuxuu gacanta ku hayaa mashruuca dhismaha maraakiib dagaal oo dowladda Pakistan ay leedahay diyaaradihiisa dagaalka ay halkaas ku sugan sidoo kale isbahaysi gaar ah ay Turkiga iyo Pakistanba ay ka wada tirsan marka waxay yiraahdeen mahad celin oo kaliya ayaan kugu imaanay iyadoo diyaaradaha Turkiga qayb ay ka ahaayeen dagaalkii u dhaxeeyay Hindiya iyo Pakistan waxa taa ka sii daran maalmihii dagaalka uu socday warbaahintii oo idin inay baahinaysay in diyaarada Turkiga ka dhaqaaqay ee magaalada Karachi ay gaareen waliba diyaarada dagaal oo ciidan ah lana aaminsanaa inay saanad military ay halkaas geeyeen marka ra-iisul wasaaruhu wuxuu yiri inaan idin mahad celino ayaan halkaan u nimid kadib markii uu la kulmay madaxweynaha dowladda Turkiga dhinaca kale kulankii dhex maray shalay madaxweyne Erdogan iyo madaxweynaha dowladda Syria waxyaabaha la isla soo hadal qaaday waxa qayb ka ah dhismaha saldhigyada Turkiga uu doonayay oo bilowgii Israa'iiliyiinta ay ka careysnaayeen maadaama hadda marka Syria dhinaca kale wax walba ay u wareegteen waxa suuragal ah la leeyahay Turkiga halkaas inuu saldhigyo military uu ka sameeyo ciidamada dowladda Ukraine ayaa weerarkii ugu cuslaa oo diyaarada drones loo adeegsaday waxa ay ku qaadeen magaalada Moscow caasimada dalka Ruushka maanta waxaana lagu tilmaamay mid kamid ah weeraradii ugu cuslaatan iyo February 2022 weerarkan ayaa warbaahinta Al Jazeera waxay baahinaysaa inuu ku soo beegmay iyadoo la sheegay in Qatar ay gashay diyaarad helicopter ahayd oo la socday madaxweynaha dowladda Ruushka Vladimir Putin xilli uu ku sii jeeday gobolka Kursk oo dhanka xadka ku yaala warbaahintan waxay baahinaysaa in diyaaradahan droneska ah ay reer Ukraine ay doonayeen inay ku bartilmaameedsadaan magaalada Moscow duqa magaalada Moscow oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay inay soo rideen qaar kamid ah diyaaradaha droneska si gaar ahaaneed 4 diyaaradood oo drones kuwaas oo uu sheegay in lagu bartilmaameedsanayo garoomo diyaaradeed oo magaalada Moscow ku yaala waxaana si ku meel gaar ah maanta loo xiray ilaa 3 garoon diyaaradeed oo Moscow ku yaala sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga ayaa shaaca ka qaaday in ay soo rideen in ka badan 110 diyaaradood oo tan iyo xalay ay Ukraine ku weerarayeen deegaanada ama dhulka dalka Ruushka
maanta marka Ukraine waxay sheegtay in ka badan 367 diyaaradood inay gudaha dalka Ruushka ay ku weerartay, taasoo halis gelisay madaxweynaha dowladda Ruushka Vladimir Putin. warbaahintu waxa kale ay baahinaysaa dhinaca kale Ruushka inuu duqeymay ugu cuslaa isna uu ku garaacay deegaano kala duwan oo gudaha dalkaasi Ukraine ka tirsan. labada dhinac waxay sheekadan kusoo beegmaysaa iyadoo ay maxaabiis isdhaafsanayaan. ilaa iyo 16 ruux ayaa la xaqiijiyay dhanka iyo magaalada Kiev oo caasimada dalka Ukraine inay ku dhinteen, sidoo kalena kuwa kale ayaa dhaawacyo la diiwaan gelinaya. mana jiro macluumaadyo kale, waxyaabaha ka soo kordha waan kula wadaagi doonaa. arrimahaasi iyo waxyaabo kale barnaamijka qaybihiisa ugu dambeeya ayaan si gaar ahaaneed ugu dul istaagi doonaa insha Allah, anigoo doonaya inaan wax badan ka ogaano caawa shirkadda la sheegay inay gargaarka ka qaybinayso magaalada Gaza iyo dhammaan waxyaabaha ku hoos jira shirkadaasi. shirkadda la sheegay inay gargaarka ka qaybinayso magaalada Gaza waxaa loo soo gaabiyaa GHF ama Gaza Humanitarian Foundation. waxaa la shaqeynaya waa laba shirkadood oo Mareykanka laga leeyahay. shirkadda koowaad waxaa la yiraahdaa UG Solution, waa shirkad ku takhasustay arrimaha amniga iyo adeegyada logistikada oo dhanka ciidanka ah. waxaa kaloo la sheegaa in sidoo kale ay bixiso adeegyo ay ka mid yihiin dhanka amniga ama inay ciidan private ah oo si gaar u tababaran ay leeyihiin, kuwaas oo la shaqeeya hay'adaha dowladda iyo sidoo kale kuwa gaarka loo leeyahay ama kuwa NGO-yada iyo kuwa la midka ah. hay'adda kale ama shirkadda kale ee la shaqeynayso waxaa la yiraahdaa Safe Reach Solution, SRS ayaa loo soo gaabiyaa. waa shirkad iyadana Mareykanka laga leeyahay, iyadana waxay bixisaa adeegyo la xiriira dhanka amniga iyo sidoo kale howlgelinta kaabayaasha zaadka iyo waxyaabaha la midka ah. waxaa shirkadani la sheegay inaysan wax aqoon ah aysan u lahayn arrimaha gargaarka, sidoo kalena hore aysan kaga soo qaybgelin barnaamijyo noocaasi oo kale ah. hadda laakiin waxaa la yiri labada shirkadood oo aan taariikh hore u lahayn inay gargaar iyo waxyaabo la midka ay ka qayb galeen waxay caawin doonaan hay'adda la sameeyay ee Gaza Humanitarian Foundation la yiraahdo, kuwaas oo gargaarka ka qaybinaya magaalada Gaza. Mareykanka arrintan waa uu taageersan yahay. hay'adani maxay tahay marka oo Gaza Humanitarian Foundation la yiraahdo? waa hay'ad sida la sheegay si gaar ahaaneed loo aasaasay wixii ka dambeeyay bishii February, waxaana mid loogu talagalay in la yiraahdo nidaamka gargaarka ay qaybin doonta iyo waxyaabaha la midka ah. sida diiwaankeeda ku xusan waxa ay ka aasaasan tahay ama ay ka diiwaan gashan tahay dalka Switzerland. dowladda Switzerland waxaa lagu waramayaa inay bilowday baaritaanka ku aadan hay'adan, inkastoo ilaa imika macluumaad dhammaystiran aan banaanka la keenin oo hay'adani ku saabsan. waxayna u badan tahay inay Mareykanka iyo Israa'iil arrintan isla ogaayeen si mashruucii ku saabsanaa barakacinta dadka shacabka ah uusan meesha kaga bixin. mas-uuliyiin badan oo Israa'iiliyiin ay si cad u sheegeen. hay'adan marka waxaa loo arkaa in lagu sameeyay iyada oo aanan la ogeysiinin hay'adaha amniga ee Israa'iil iyo sidoo kale kuwa qaramada midoobay. waa tii qaramada midoobay ay gabi ahaanba ay diidaneed sidaan arki doono. waxaa door weyn ku leh hay'adan xubno si dhow ula shaqeeya ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu oo ka mid yahay General Roman Goffman lagu magacaabo oo ah xogayaha militariga ee sidoo kale Netanyahu. xogahan oo dhan waxaan rabaa inaan xasuusano maxaa yeelay qayb kasta oo xogtani ka mid ah qaybaha kale ee barnaamijkeena ayay ka jawaabi doonaan su'aalo ku jira. marka hay'adan iyo hay'adaha kale ee la shaqeynaya waxaan u maleynayaa wixii hadda ka dambeeya inaad ka dharagsan tahay. mas-uuliyiinta hay'adda ugu sarreeya marka ee Gaza Humanitarian Foundation waxay yiraahdeen annaga marnaba kama qayb qaadan doono barakicinta qasabka ah ee dadka ku nool magaalada Gaza, kaliya gargaar ayaan qaybin doonaa. waxaan u maleynayaa marka hadda su'aasha koowaad inaad ka jawaabi karto oo ah waa kuma dadka sidaasi dhahaya. dadka sidaasi dhahaya waxaan u maleynayaa inaad hadda ka jawaabi kartid oo dhahaya kama qayb qaadanayno barakicinta qasabka ah ee dadka magaalada Gaza. haddaba waxaa jiro arrimo la yaab leh oo hadda soo kordhay oo qayb ka ah hay'adan iyo waxyaabaha ku hareeraysa oo aan doonayo inaan kula wadaago. sida warbaahinta gaar ahaan wargeyska Washington Post uu baahiyo wakaaladaha wararka qaar sida Reutersna ay soo xiganayso, waxaa jira baaliire teknolojiyad iyo qalab casri ah oo shaki badan abuuray oo la leeyahay hay'adahan way isticmaali doonaan marka gargaarku ay qaybinayaan. waa maxay teknolojiyadaasi? teknolojiyadaasi waxay tahay sida la sheegay aqoonsiga faraha iyo sidoo kale wajiga rasmiga ee qofka gargaarka qaadanaya, taasoo ka dhigan qofka marka gargaar la siinaya inuu fara meel saarayo wajigiisana ay soo baxayaan. waxay taa qayb ka noqonaysaa marka ururinta macluumaadka dadka gargaarka la siiyey oo haddii Israa'iiliyiinta dad hore ugu diiwaan gashanaa meesha ay soo galaan
sidaas ay ku sahlanaan doonto in xubnaha xogaga ka tirsan si fudud gacanta loogu qabto. taasi marka waxaa la yidhi waxay siin doontaa militariga Israa'iil inay si buuxda u kala aqoonsadaan dadka gargaarka helaya iyo kuwa aanan weli helin, iyo xogta rasmiga ah ee dadka gargaarka loo qaybinayo maadaama fara la marayo. sidoo kale shirkadaha Mareykanka waxaa lagu waramayaa in arrintan sidoo kale door weyn ay ka ciyaarayaan. cidda sidaas sameynaysa iyo inaad hadda kadib fahamsantahay ay la tahay. waxaa la sheegay shirkadda UG la yiraahdo iyo shirkadda kale ee SRS la yiraahdo inay yihiin shirkado cusub oo laga shakisan yahay. shakigana waxaa sii kordhiyay markii la doortay dadkan inay ku shaqeeyaan dhinaca xadka Masar iyo Gaza ay wadaagaan, dadka oo idin la doonayo halkaasi in la geeyo. labada shirkadood marka waxaa lala xiriiriyay sirdoonka Mareykanka iyo sidoo kale shirkadda kale ee gaarka loo leeyahay dalka Mareykanka ee la yiraahdo Blackwater, sida xogahaba aad ku arkaysaan oo warbaahintaba ay daabacayso. arrinta la yaab kale ee soo kordhay maxay tahay? sida warbaahintu ay baahisay waxaa hadda soo kordhaya gaar ahaan warbaahinta Masar ay baahinaysaa in lagu arkay dhinaca Rafax iyo marinka Gaza u dhaxaysa rag hubaysan oo wajiyada soo dabooshay, kuwaas oo ku sugan magaalada Rafax, qaybna aanan ka ahayn sida la sheegay ciidanka, kuwaas oo aanan si cad u muuqan inay ka tirsan yihiin ciidanka militariga ee Israa'iil ama kuwa Mareykanka, balse waxay u eg yihiin ciidan qaas ah oo sida sirdoonkii oo kale u shaqeynaya. waxayna dadku qaar ay leeyihiin waxaa suuragal inay qayb ka yihiin ciidanka la sheegay inay amniga xaqiijinayaan, kuwaas oo sirdoon u badan, sidaan barnaamijka qaybta hore idinkula wadaagay. arrinta la yaab kale ee jirta marka waxay tahay in Masaaridii iyo Mareykanka bilowgii iyo xitaa Jordan ay isku mari waayeen in dadkan si qasab ah loo barakaciyo. waatiin madaxweyne Trump si cad u sheegay oo aan ka gabasho lahayn. markii dambe waatii uu ka laabtay oo boqorka Jordan uu tagay Washington, madaxweyne Sisi uu ka baaqdayba inuu Washington uu tago. arrimo badan oo jira daraadeed isaga iyo Trump way isku dhaceen. waxyaabaha isku hayaan waxaa qayb ka ah maalgelinta Shiinaha uu ka sameeyay kanaalka Suez, Masaarida inay diidan yihiin qorshaha Mareykanka ee in xadka marinka Rafax la furo. sidoo kale ay aad u diidanayeen arrinta ku saabsan Yemen iyo waxa ka soconaya inay aad u diidanayeen maadaama madaxweynaha Mareykanka uu doonayay in marinada Suez iyo meelo kale ay ka mid yihiinba ay maraakiibta dagaalka si bilaash ah ay u isticmaalaan. marka dhankan ayaan ka eegaynaa, dhinaca kale kama eegayno waqti xaadirkan. maxaa yeelay warbixinteena ayaa waxay qusaysaa diidmada Masar iyo wixii ka dhashay kadib iyo hay-adana in si dhaqso ah loo sameeyay, hay-ada kalena ay sheekada ay ku lug leeyihiin. aan hore u sii socono marka. waxyaabaha la isweydiinaya marka waxaa qayb ka ah muxuu ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu u doortay hay-adaha